runtii waxyaalaha ugu dhibka badan oo rumaysanahay in adinkana ay saameynayso annaga hadda safarnana saameynayso waxa ugu yar waxa baasaboorada Mareykanka xataa kuma safar karnaa ama kuwii Kanadiyaanka sababta waxa la leeyahay nimankii hadda howl kale aan soo gashay awal waxa iska ahayd moogtahay waa ka fududeed barnaamijku sharci ma laha iyo ay joogto hadda baasaboorkii aba dhibaato ka imaanaysa waa ogtiin airborada waxa ka dhacay maalin dhaweed markii la dooranayo Obama xamar aan joogno waa la yaab markii newska aan maqalnay in dadkii Canada ka imaanay dhan lagu wada xareeyay airborka arrimahaas waxay u baahan yihiin in kulay dad community wax iska timaado waa arkay demonstrationada magaalada ka dhacay marka koowaad inaad aware u ahaataan in positive iyo negative contribution aad leedahay ka soo lacagta aad reeraha u dirtaan taladiina iyo aqligiina waa loo baahan yahay waxaan aad iyo aad u dareensana halkan hadda waxaan adayto dad badan oo waxa laga sheegay waqti ama mas'uuliyiin hore dawladda ka soo ahaa ama agaasimayaal ahaa ama nidaamyadii badan wax badan ku soo jiray xagga markii aad ka fiiriso kulan saan oo kale hadii la isugu yimaado anaba ugu weynaanayaba Soomaalidu waa dayoodo dib baa ku dhacay oo waa dalaafeeno kulli waa dayacay oo dawladnimadii qabiil bay ku doorsadeen oo qaaradaha dunida dawarsay ku nool yihiin dad iyo dunyaba dalkoodii dambay dhaheen oo waa la duuduubay calankoodii diirana ee ku dacwoonaya ilaahu dalaala keen baan وكنت أقول لك إنك سوى مقنع ياي إسلامها أنا أولي ليا حوجاga waxaa la yeeraa kulay guriga baa baroor u tagaysan maalin kasta ay ninkaygi baa la dilay irugii baa la iga dilay walaalay mid aan abtilahay baa sala gacanta la gooy waxaas kale anaga noo dambaysa ya ee kala anagu aan ducayno raggu kale ducaysan maayo gaar bay dalbadeen haliyay hooyadii hoobiya la tagay oo hay ma haystaan quraacday ha ureeyeen hanti ma haystaan dibadda ha ureeyeen baan raggoodii kaagi lahaa way siifayaan هلاقي الله كسره هداية كانوا إله وهات ناصر درادية ولا وحاني الله ما ندق لما الله لما هديا إله موقف صومالي ذو كميدا كل ما تعرف وذا علم كان ما قعدين معبود بعطايا من الله ينوغا كان بان الله صومالي إذن كان يتعبسي باني فلا يردوغي الله وهديه كسار نول بقى من متك يعود ولاقيه وإسلام بانها يدعى لنا نجاتي. أنا الله داق بحية نبي قاعد قد يشمله واحد درجة لو قف الدين تعب جعل دحية إيمان مثل دا على رتيه قرآن ما يشدر إلى خطان هاي شن هذا مدر تكان دار إلى كثير الله دمر يدنوتين أردن ماي الله دعاء يبريض الوجية امتداد الله دلب كأنه فيديو دعوة عجيب دبال كنا نوقع قاد ماشى دلوعي تاعي ضدك إسرائيل يا ربي وظلم كره الله ضبيل عافي معه الدواء نصيب الله نوات بان الدغدغ دلك مكان الله سومالي اسكتير او اسكدنا او داقسنتي يا عيالك لبدين بدرسيين وقالوا اسكدنا ولا كيدوي اذا نقعد قبل كنت دغ قبو بس انا بابا يا عالم كان نديرنا ادا داينه دغدغسيمنا او كيما watahay daawadayaal waxaan filayaa in aad ka bogateen qodbadaasi dheer halka aad kala socoteen waa Somali TV bal markaana waxa la soo gaaray xilligii aan hawadeedii ciyaari jirnay wixii suugaan maanta aan idin hayno bal aan idinku duwa kaydka Somali TV iyo Siyaad Saciid Salax Somali ay nabad nabad ba wanaagiyo naxariis ilaahiyo iyo barwaaqo leh Somali ay nabad Somali ay nabad nabad ba wanaagiyo naxariis ilaahiyo iyo barwaaqo leh Somali ay nabad نقطي مدودا Somali ay nabad نعم
timidowdo Soomaaliya nabad Soomaaliya nabad Siyal manole Soomaaliya nabad haweenkii nuglaye Soomaaliya nabad ubadkii naafooye Soomaaliya nabad siyal manole Soomaaliya nabad haweenkii nuglaye Soomaaliya nabad ubadkii naafooye Soomaaliya nabad watahay daawadayaal waqtigeena halka ku eg bal markaana waa guntii iyo gabagabadii barnaamijkeena sida caadada ahba Somali TV alaab waxay soo dhaweynaysaa taladiina tusaaladiina dhaliishiina iyo guubaabintiinaba wixii aad akhbaaraysaan inoogu reeba taleefanka hoos ku qoran intaan hawada dab ugu kulmi doono waa anigoo Cabdiraxmaan Jaaweyn dhamaan baada Somali TV Maxamuud Mascad Wiilwaal Cabduqaadir Cusman iyo Siyaad Saciid Saalax waxaynu idin leenahay sidaas iyo nabad geliyo